labada muslim hadday seeftooda isla soo qaabilaan bimacnaa iyagoo doonaya inay ku dagaalamaan ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naartay gelayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii ehelka samaawaadka iyo ehelka dhulkoo dhammi ay wadaagi lahaayeen oo isugu tegi lahaayeen qof muumina ama muslima dilka ay dilaan oo xaqdarro ku dilaan ilaahay kulligood naartu gelin lahaa aad baan uga xumahay dadka lagu laayey laascaanood oo markii hore yacni markaa dad badan lagu dilay oo si shirqoolah hoose loo dilay in dad markaa waxaa mudaharaadaya oo markaa wax haysitaan ay ugu weyn tahay hadday doonto dhagax ama aan waxba sidan ama dhagax sita in la laayaa ma bannaana caaqibaduna waxay ku dambaynaysaa haddii layscuno layslaayo aakhirka marka dambe in la heshiiye ku dambaynaysa qofka waxa weeye waa la xabaalayaa nin iyo xabaashii loo kala teg qabiil baan kuu dooday qaran baan kuu dooday qof baan kuu dooday qoys baan kuu dooday cid wax kuu taraysa ma jirto qadiyadda laascaanood ee jirtana ee dagaalka meesha ka jiraa waa fitno waa in laga fogaado inaanu islaynaa inooma bannaana qolana uma bannaana ka gees walba ku dhimanaya waa muslimkii weeye qof muslimoo ashhaadanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah ayaa gees walba ku dhimanaya khasaaraha innagaa ku qabna dembigana cidda geysatay baa leh waana muslimiintii oo la laciifinaya ayaa gees walba ka imanaysa oo yacni markaa taagdarra ka imanaysa nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii beladikum hada dhiigga qofka muslimka ah iyo xoolihiisa iyo sharaftiisa mid walba ka kale waa ka xaaraansan yahay sida markaa xaramka ilaahay xaaraan u yahay oo aan tacaddi in lagu sameeyo ayna u bannaanayn ayaa dhiigga muslimku xaaraan u yahay bisha xurmada leh siday xaaraan u tahay yacni markaa ayaa dhiigga muslimku xaaraan u yahay maalinta uu nebigu khudbadda jeedinayo yowmu carafa siday xaaraan u tahay oo xurmo u leedahay ayaa dhiiggaasi u xarrimaya xurmo u leeyahy weliba bishaynu joogna waa bil xurmo leh waa bishii rajab 4 bilood ee xurmada lahaa bay ka mid tahay ee si gaara ilaahay inagu yidhi falaa tadlimuu fiihinna anfusakum nafihinna ha dulmina qabyaaladuna waxba ma faa'iidinayso meel la iskuma taagto waa basal baa la yidhiyo yacni waxa weeye marka qolo sare la joogo in halkaasaa la qabyaaladiinaya marka taa la waayo hoos bay u soo degaysa marka taa la waayo hoos bay u soo degaysa ilaa marka dambe ay timaaddo yacni faamiliga hoose ay timaaddo oo labada bahood marka dambe ay timaaddo marka qabyaaladdu faa'iido ma leh dugsi male qabyaaladii waxay dumaysa mooyaane yacni faa'iida uma jirto qabyaaladda sharciguna waa inooga digay